maanta oo Jimco ah salaadii Jimco kadib waxaa Ilaahay noo suurageliyay inaan soo booqano masaajidkii Biimalow oo sidaad u jeedaan dhismo cusub laga bilaabay oo sida injineer ay noo sheegeen ama ay la wadaageen dhismo aad u qurxoon oo aad u qiimo badan oo designkiis iyo 3D-giis iyo dhinacyadiisa oo dhan aan aragnay oo masaajid ugu qurxoon Soomaali ka mid noqon doona haddii Ilaahay idmo oo le maraafiq badan wax walba masaajid u baahanaa maraafiqdeedana le alxamdulillah thumma alxamdulillah waxaa ku mahadsan masaajidkan dhismihiis iyo gacan ku hayntiisa mu'asasada Macalin Nuur oo ah mu'asas u taagan dacwada iyo u adeegidda bulshada Soomaaliyeed oo Khaliif Macalin Nuur wuxuu ahaa sheekh dadaal badan oo diinta ku darsaday in bulshada Soomaaliyeed dhinaca isku duubnida iyo iskaashiga iyo masaakiinta u gargaaritaankeeda kaalin weyn ku lahaa waxaan ka warhaynaa qabuurihii Macalin Nuur oo uu waqfay waxaan ka warhaynaa inta dugsi Qur'aan oo magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya uu ku lahaa khaliifka sidoo kale waxaan ka warhaynaa anoo yar cayaal Madiina ahaa markii Madiina aan joognay waxaan arki jiray garaashka Macalin Nuur meel lahay oo garaashyada maxaa la xitaa baawarta lagu xareeyay khaliifka marka nin gacmo hoorsada ma haynin wuxuu ahaa khaliifka Sheekh Macalin Nuur wuxuu ahaa nin aad u dadaal oo bulshada isku duubnideed iyo inay shaqaystaan oo aliyadu ulya khayru min aliyadi sufla ayuu ku sifaysanaa sidoo kale Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur oo ah nin dictore oo dadaal badanna shaqadii uu soo waday alwaalid raxmatullahi alayhi raxmatul abraar wuu laba jibaaray marka waxaan aad u bogaadinaynaa cid walbo gacan ka geysatay ama kaalin ku leh dhismaha masaajidkan oo ay ugu horeyso mu'asasada Macalin Nuur injineerada jamaacada Macalin Nuur khulafada asxaabta iyo qof walbo mu'min ah oo gacan ka geysta masaajidkan waxaan noo sheegay masaajidka in lacag badan ay ku kacaysa intaas oo dhan qofkii dhabarka u riti marka waa wax aad looga farxo waaye waxaan u jeednaa hadda dhismihii masaajidka in uu bilaabanayo marka maanta waxaan u nimid inaan masaajidka barakayno oo baarakayno aan dhahno maxaa la dhahay maadaama wasaaradda awqaafta arrimaha diinta aan nahay in aan ka warhayno dhismaha masaajidkan oo wax walbo ay u baahan yihiin oo dhinaca wasaaradda kaga xiranna inaan u fududayno masaajidka marka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta anagoo waxaan aad u bogaadinaynaa in la dhiirigeliyo la hormariyo dhismaha masaajidda sida oo kale waxaan rabnaa dugsiyada qur-aankana in dhismahooda laba jibaaro mu'asasada Macalin Nuur waxay ka tahay dugsiyadeeda waxaan loo sheegay inaysan laamiyaha qarkooda uusan ku oolin oo dugsi walba ay u waqfeen boos marka shacabka Soomaaliyeed inay ku daydaan oo dugsiyada qur-aankana dhul loo waqfo la dhiso sida iskuulada loo dhisay ka fiican in loo dhisa taasna mu'asasadana waan ku bogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeedna guud ahaan meel bay joogaan waxaan ugu baaqaynaa diinta inay u gargaaraan diintu aan u gargaarna anaga ku sharfo weyn anaga ku cizo weyn